كل هذا كسود الجاري هذا مضحك عماك واي أنا قاعد يوعدكم الجارسينين ونصدق أنا هلسه أجلينين كان هذا أبو البيبي نفسه أودله ما لو كده تجي بوس نيك ولا السعودي بس أنا حاسس ما بوس واسكت يعني إنك نادي له أقول حبذا أقول كلها قلبح هو أنا واحد ضم مش هيك كاسنا راسنا إيه ياسين قيد صومانك أقول شيء سنة بكي دعي ninkaas haweenka hore way maana haweenka hore oo maqnaana hadda ii wac telefonkiisa wax laga fikir ma ahan kan caadi waaye way galad an maxay rabtaa وده يقفل سوا على لما أقول صاحب maalmahan oo dhan ay daba socday ayaanta ma arkin intuu ka baxay حلقة حفيزك دخل ونس موتو كرواي واكو بريا ولا موتو كرواي ورنا على ورنت هذا ما نيجي تقنيه وبحر بيجلس به qeys hadda yuu soo baxay wadada mar la adaab taagan iga leex wadada dhanka mar soo dhowsid والدي هذه أباها بوس قال قارقال way tahay boos waa ku bariyaa inaan midis ana su'aal iigu dhimayeen qabiilkiis maxaa baad ما خاف wala kun halla aqoon meesha ku xiriyaa sheeg maxaa u sheegtay iska caadiya laakiin u baahan in degdeg loo qabto روب لا ديك كل هذا يسودك دجيوبك wayna salaam saaxiibayaal soo dhawaada ku soo dhawaada qaybtii 15aad ee musalsalka dhaxal saaxiibayaal qaybtan waa qaybtii ugu dambeysay musalsalka uguna shidan sorry qaybtan waxa la rabay xal dheer inaan soo dhigay laakiin sekuuradka abka la adkeeyay marka way adkaatay in muuqaalka la soo dejiyo iska dhaaf inaad daawato xataa aad ay u adkay sidaas darteed ayuu muuqaalku ku soo daahay marka saaxiibayaal kuma sii dheeraanayno muuqaalka ayaa gudaha u sii gelaynaa bilis waxa ka codsanaaday taa markii ugu horeysana soo booqato inaad channelka subscribe dhahdo muuqaalkana like noo saarto aad iyo aad u mahadsantahay muuqaalku wuxuu ka biloomanayaa sidaad halkan uga jeedaan lowkaan iyo shiina waxa u dhexeeya xarifka shaati caddaa marka wax yar dib noo celiya qaybtii hore waa tii ku dhamaatay xabadda dhacday iyadoo la gelin waayo qofkay ku dhacday dadka waxay ku wareersanaayeen qofkay ku dhacday mashiina lowkaan mise galad xataa dadka qaar waxay dhahayeen waa duniya laakiin sidaas may noqon sidaad halkan ka arkaysaan xabadda waxay ku dhacday shaati caddaa meesha maraya dadka dhanna meesha way ka kala carareen shiino oo qorshihiisii ka fashilmay waxa uu bedelinayaa dharka gadaashiisa waxa taagan galad oo dabagal ku haya rabana inuu ogaado qorshihiisa waxa uu bedelinayaa dharka waxauna tagayaa geerashka waxa uu kula kulmayaa qays galad taas waa uu aamini weynaya waxa uu sheegayaa inuu qorshihiisa ku fashilmay galadna uusan dhiman qays waa uu canaananayaa halka galadna uu ka daawanayo gudaha gaarigiisa ugu dambeyn waxa uu ogaaday laadarka dhabta shiina waxa lagu canaananayaa sababta uu uga badbaaday isna waxa uu u sheegayaa inay la socdeen rag hubeysan halka kale waxaanu arkaynaa lowkaan iyo walaashiis oo imaaday guriga waxa uu u sheegayaa inay gudaha gasho asna uu soo laaban doono hooyana uusan waxba u sheegin iyadoo la hadlaysa kuna leh habixin waa uu iskaga tegayaa iyadana waa iska xaroonaysaa halka kale waxaanu arkaynaa galad oo imaaday guriga saaxiibkiis waxaanu u sheegayaa wax walboo dhacay ha ku saabsanaada bangiga xiritaankiisa dilalka xiritaankii daahir inuu ka dambeeyey qays wardina waa uu aamini waynayaa hadalkaas waxa uuna leeyahay xiritaankaaga iyo dilka siiri ma waxa ka dambeeyey qays isla markiiba waxa soo wacaysa duniya waxayna u sheegaysaa raggii aabaheed dilay inay raggaas yihiin iyadana ay ku daba jireen waxa uuna leeyahay soo ima dhihin aabahay waxa loo dilay aana qabiil laakiin iyada waxay u sheegaysaa in aana qabiil aysa ahayn ay wax ku hoos duugan yihiin subaxda xigta waxaanu arkaynaa lowkaan qoyskiisa oo raadinayo duniyana waxay hooyada u sheegaysaa inuusan xalay soo hoyan waxay ku leedahay maxaa xalay dhan iigu sheegi weysay isla markiiba
farxaan waxa uu sheegayaa lowkaan meesha laga heli karo waa in raadinayaan. halka kale waxaanu arkaynaa Yonis oo wadada iska lugeynaya waxa ka daba imaanaya galad waxaanu ku leeyahay kaam ku sii qaade. isna waxa uu sheegayaa inuu rabo inuu luga baxsado cabaarna uu iska sii socdo. waxaanu ku leeyahay in kugu filan waa soo luga baxsatay ee kaale ku sii qaada ay ugu adkeen camal. oo ka fikiraya laakiin waxa uu leeyahay wax laga fikira meesha ma taale soo kor isagoo ka cagajiidayana waa isku gelayaa baabuurka. intay jidka sii socdeen waa ay sheekeysanayaan. galadna waxa uu sheegayaa dilka Siri iyo xiritaankiisa iyo daahir xiritaankiisa inuu ka dambeeyay daahir. isna waxa uu leeyahay maxaa iga galay marka maxaa igu sheegaysaa xariifkan fani waay wallahi. waxa uu leeyahay saaqaas ay gelinayo. galadna waxa uu sheegayaa inuu rabo inuu la shaqeeyo. waa uu ka diidayaa marka hore laakiin ugu dambeyn waxa uu leeyahay maadaama aad tahay saaxiibkii hore waxa u baahanta waa kuu sameynayaa ee maxaad rabtaa. waxa uu leeyahay hadda meesha rabay soo istaagtay. waxa uu dhiibayaa falaash waxaanu ku leeyahay qeli qays kombuyuutarkiisa. iina soo sheeg markuu soo baxayo war odayga waa la taageera waa gudkiisa bay ugu soo galeen. halka kale waxaanu ka arkaynaa lowkaan oo raadinaya galad. bis waa intaa rababa intaan ahayd lowkaan iyo galad hadday saaxiibaan soo maaha. fiilinka daawashadiisa haddayba macaanaanaysaa. waxa uu soo galayaa maqaaxi waxaana loo sheegayaa inaanu hub la ogoleen uusan la geli karin. waxa uu leeyahay halkaana raba inaan qof kula kulmo laakiin waa laga diidayaa. galad ayaa u imaanaya banaanka. markay kulmaan waxa uu weydiinayaa waxa uu ka rabo iyo sababta uu usoo wacay. galad waxa uu tusayaa sawirka Shiine laakiin lowkaan waxa uu ku qabanayaa baaskoolad. waxaanu leeyahay adiga ayaa u balamiyay Somaan walaashay inuu dilo ninkan. laakiin galad waxa uu leeyahay istaji sheekada sidaa mooday maaha. ninkan u aftuubnaa waana ninka aabaha dilay. waxaan aqaanaa ninka u shaqeeyaan oo soo dirsaday amarkana siiyey. waa laga qaadayaa hubka. kadib markay iswareystaan galad waxa uu weydiinayaa aabiis waxa uu ka shaqeyn jiray iyo waxa loo dilay. lowkaan waxa uu sheegayaa inuu ahaa dalaal kala iibiya dhulka. halka kale lowkaan familkiisa waa ay raadinayaan. waxa ay imaanayaan meesha uu ku qayli jiray laakiin waa ay ka weynayaan. waxaana loo sheegayaa inuu si dhowaanba meeshan uusa imaan. bangiga inageeya qays waa uu baxay. Yonisna waxa uu soo galay xafiiskiisa si uu falaashka kombuyuutarka u geliyo. laakiin nasiib xumo qays waxa uu ilaawayaa telefoonkiisa waa uuna ku soo laabanayaa isagoo ku jira xafiiskiisa. waa uuna weydiinayaa sababta uu soo galay xafiiskiisa uuna ugu fadhiya kursigiisa. waana uu isboojeenayaa. waxaanu weydiinayaa shukulaatadan adima cuntay intee lagu gadaa camal. waxa uuna u sheegayaa inay waraaqadaha dhameeyeen ayna soo marinayaan xafiiskiisa. waxaanu ku leeyahay waa laazim inaa xafiiskayga soo marisaan. waxa uuna sheegayaa isagoo maqan inuusan xafiiskiisa soo geli karin haddana uu iska bixi karo. telefoonka ayuu qaadanayaa waa uuna tegayaa. waxa uu wacayaa galad. waxa uuna sheegayaa inuu maanta baxar gelin rabay uu hadda badbaaday uu isboojeeyey. galadna waxa uu weydiinayaa inuu hadda caafimaad qabo. waxauna ku leeyahay caafimaadkaaga ayaa muhiima jaanis kale ayaa hadleelaysa. iisoo sheeg marka uu toos usoo baxo. halka kale wariiri iyo saaxiibkiisa lowkaan waxa ay dhacayaan mooto. marka hore waxay rabeen kaliya inay telefoonada ka qaataan laakiin waxay dhahayaan mootadan shidaanaaba ku haysanaaba shaqo yar arbaa inaan ku qabsano. derbiga inta madaxa loo saaro ayaa mootadana laga wadanayaa. halka kale Yonis waxa uu galad u sheegayaa inuu qays soo baxay. waxaanu arkaynaa mootadii soo dhacayeen inay qays ku qaban rabeen. lowkaan iyo saaxiibkiis wariiri waxay mootada ka dhigeen wax wadada ku halooday. wariiri waxa uu iska dhigayaa qof hagaajinaya mootada halka lowkaanna uu oday iska dhigay wadada taagan. qaysna waa uu soo degayaa oo waxa ku qaylinaya odayga waxaanu leeyahay wadadana iga leex inta ayaa maraya. laakiin lowkaan waxa uu la soo baxayaa baskoolada. waxaanu ku leeyahay gal gaariga ee inawadi. laadarkana waxa uu jabsanayaa cabaad maxaa rabtiin waxa u mahaye ee iga qalaya.